iyadoo maanta ay ku beegan tahay soddon guurada xuska maalinta loo aasteeyey daryeelka iyo kor u qaadista xuquuqda carruurta ayaa maanta waxaa magaalada Caynaba lagu qabtay munaasabad balaadhan oo lagu weyneynayo maalintaasi. Munaasabadan oo ka dhacday hoteelka caalamiga ah ee Caynaba isla markaasina ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ayaa waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Saraar. ugu horreyn bana halkaasi waxaa ka hadashay isuduwaha wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Saraar Marwe Zamzam Jaamac Siciid oo faahfaahin ka bixisay muhiimadda ay maalintan leedahay. aynu isugu nimi maalintan aynu halkaas isugu soo waxa weeyaan maalintii caruurta aduunka. maalinta caruurta aduunka weeye waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. waxaan halkan uga mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda Hinda Jaamac Xirsi oo iyadu maxay tahay howlgalkan fulisay wasaaradana ka mas'uula agaasimaha guud ee wasaaradda bahweynta wasaaradda ayaan halkan uga mahadnaqayaa iyo barasaabka gobolka Saraar. adduunku waxay ku ajis magaraysay in caruurta la daryeelo oo waalidku daryeelo oo hooyooyinku daryeelaan oo abayaashu daryeelaan oo ummaduba daryeelsho. waxa la idin sheegaya la idin farayaa sumadda halkan ka muuqata waxay tahay sida caruurta loo daryeeli lahaa. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi Victoria Barwaaqo oo ka socotay bahda caafimaadka gobolka qaar ka mid ah ururada bulshada ee gobolka Saraar kuwaas oo dhammaantoodba isaga damaray muhiimadda ay maalintan leedahay iyo sida loogu baahan yahay in kor loo qaado daryeelka iyo xuquuqda carruurta. halkan waxaynu isugu nimi maanta in xuska caruurta adduunka oo ku astaysan sanad guuradii xeerka caalamiga ee caruurta adduunka. marka de kolley inagu aynu xusno maadaama ay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada ay soo qaban qaabisay xuska inaynu taageerno oo aynu la qabno. waayo daryeelka ciyaalku waa halka koowaad ee ay maskaxdiisu ka dhisanto ama jirkiisu ka dhismo ama dee tarbiyadiisu ay ka soo abuuranto. waxa weeyaan kolley dee waxaan waa xus weeye waa xuska caalamiga heer caalami. caruurta aniga way la soo hadashay wasiiradu waxay igu tii dadka curyaanka ah soo liiskare ee gobolka jooga kaamka labada kaam iyo magaalada gudaheeda bay iga soo liiskare 290 qof bay noqdeen. 290kii qof waxay tii waxa loo soo sameeyay gaariyo maalintii dhaweyd ee ay safarka u baxaysay baan la hadlay waxay igu tii gaariyadii 260 baa diyaara dadka loo sameeyay 260kii waa diyaar yar bay leeyihiin baan ku yiri caruurtaasi rafanaysa oo dhulka rafanaysa oo baaralaysa ayaa kaamka jooga waa 2 caruura way u diyaarisay ka way ku mahadsantahay wasiirku habeen iyo maalin waxay u taagantahay say dadkeeda wax ugu qaban lahayd. salaamaya maanta waa maalin aad u weyn duniduna isku raacday soddonka muddo 30 sanadooda ayaa la xuseeyay. maalintan qiimaha ay leedahay waxa weeye qof kasta caruurnimo soo mara laakiin ilmuhu haddaynaan isaga dhisin oo ku tabcin berri heli mayno hogaamiye nadiifa ama hogaamiye caafimaad qaba heli mayno dhakhtar caafimaad qaba heli mayno qof hogaamiye baalkiya political activism ama maskax fayowba dad ay ku jirto. maanta waxaan marnaa maalintii caruurta adduunka maalintan oo ku astaysan caruurta ma aha inaynu dee intaynu ka hadallo halkaas iskaga tagno laakiin si dhaba inaynu wax isu xusuusino ayaa muhiim inoo ah oo aynu wixii aynu isnaahno way ka dayacan yihiin ama way waxay u baahan yihiin update inaynu iska hagaajinaa fiican. inagu dad islaam aynu nahay caruurta waynu had iyo jeer dee diinteena ku salaysan inaynu tarbiyadaysno wax barno daryeelo. waxaan aad iyo aad idinku mahad celin wasaaradda arrimaha qoyska oo runtii xafladan soo abaabushay. jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba.